mas-uuliyiinta warshada Border Mills oo muddooyinkii u dambeeyay ku hawla gabagabada dhamaystirka warshadaasi taas oo laga hirgelinayo deegaanka Abaarso ayaa hadda waxay bilaabeen talaabooyinkii u dambeeyay ee dhismaha wax soo saarka warshadaasi waxaana hadda socda in la soo iibiyo qalabkii ay warshadu ka koobnayd kuwaas oo ay mas-uuliyiintu ka soo iibinayaan qaaradda Yurub oo ay dalka soo gaari doonto bisha 7 ee sanadkan sidoo sheegay gudoomiyaha warshada Border Mills Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur waxaana hadaladiisa ka mid ahaa waa run dhawaan inaanu tagnay qaaradda Yurub oo aanu kormeer ku sameynay goobta lagu qalabeynayo ama qalabka warshada la isku dubaridayo taasoo ah shirkad aanu siinay contract ama wada heshiis aanu wada galay si jadwalkii loogu talagalay hawsha ay ugu dhamaato alxamdulillah aad baanu happy ugu nahay oo ku faraxsanahay in bishan 7 ee sanadkani ay iman doonto warshadii Border Mills oo lagu rakibi doonana deegaanka Abaarso dhinaca kale mas-uuliyiinta warshada Border Mills iyo khubaro kale oo hogaaminaya gudoomiyaha warshada Border Mills Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur ayaa waxay socdaal ku soo mareen dhul beereed ku yaala gobolada Awdal iyo Gabiley oo ay ku soo diiwaangeliyeen 9 beerood oo ay ka beeri doonaan qaybo ka mid ah qamadiga oo ay warshadu u baahan tahay waxayna dadka beeraleyda shirkadu ka taageeraysaa in ay siiso midhaha siidhka qalabka qodaya beeraha iyo sidoo kale qalabka goynaya ugu dambeyn warshada ayaa ka iibsan doonta qamadiga ay soo saaraan oo ay markii horeba shirkadu ka taageertay sidoo sheegay gudoomiyaha warshada Border Mills haddii aad tiraahdo waxa warshada ay cunayso dibaddu ma ka keenaya faa'iidadu way yaraanaysaa marka anagoo taa daba socona waxaanu soo diiwaan gelinay 29 beerood ama beeraley deegaanka Gabiley iyo Awdal oo waqti roobaadkii la joogo run ahaantii waanu bilownay inaanu dhulkii imika aanu fallo seed fara badan baanu dibadda ka keenay heshiisyada aanu wada galay beeraleydana wax weyn iyaguna badh bay qaadanayaan shirkaduna badh bay leedahay inta kalena waa laga iibsanayaa xagga sanaag haday noqoto iyo togdheer halkan wada hadalada noo socdo diiwaangelsi ugu jira xaggaana dayrta haduu la yiraahdo ama sanadkan roobka labaad inaanu seedka bahasha shiniyeynaysa togoynaysa gaaska waxaasoo anaga gelinayna beerta horto inta markaanu galino qofkii beerta lahaa isagu wuxuu ka ilaashanayaa xoolaha iyo dadka inay gurtaan midhahaasi labadaas ka ilaalinaya ka bacdi marka la soo gooyo waxa weeyaan runtii faa'iido aanu arki jirin oo dhul badan oo ma faahantay aan waxba lagu fali jirin iyo waxa uga soo baxaya dhaqaalaha uga soo baxaya dadka beeraleyda ayaa waxay soo dhaweeyeen wax soo saarka ay iska kaashan doonaan mas'uuliyiinta warshada Border Mills sheenu joognaa waxa weyn waa qabri baxaro ceel bardaalo weeyii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siirkiina way keeneen waxaan rajaynaynaa tijaabada ugu horeysa maadaama annagu aan nahay dad khibrad u leh xagga beeraha aan isdhaafsan doono oo ayaguna ay wax nagu soo kordhiyeen oo durba ay hawlgeliyeen dadku qabadinkana u beeri lahaa qabadinkana looga iibsan lahaa oo ay magaranaysaa labada aan iskaashanno si aan u noqonno ummad Soomaaliland ku dhaqan oo isku filan sidii berigii hore mashruuc ceer bardaale isku filnaanshaha u gaadhay inaanu gacantayada wax ku soo saarno oo naan bila aadan iyo hay'ad iyo wax nahabsaamiya aanan midna eegin Sulubcay Amaan oo aqoon dheer u leh beeraha ayaa soo dhaweeyay iskaashiga dhexmara beeraleyda iyo warshada Border Mills ra'yigan ay keeneen iyo mashruucan ay keeneen waa mashruucii ugu habboonaa wadanka si wax soo saarkiisa kor u qaadayay marka Border Mills waxa la timid mashruuc oranaya inay beeraleydii dhinac ka maalgeliso dhinac ay niyadoodii dhisto oo kor ugu qaado sidii wax loo beerayay sababta weyn u sameeyay waxa beeraleydii wixii wadanka ka soo baxayay in suuq loo helo marmarka qaarkood intuu roobku wanaagsan uu haruurku baxo ama galeedii baxdo oo cid ka iibsan la yiraahdo dadka kale u bixiyaan ag fadhi dadmir wixii waxa laga iibsan waaye sanadka dab waxa imanaya khasaare ah in dadku waxba ay beerin laakiin marka imika laga qaado ee laga iibsado Border Mills way soo garanaysaa markay isoo garayso waqtiga u baahan yihiin in ay warshadii galeen bay geenayaan qofkii markaa ma khasaarin Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Ariel TV Hargeysa